wasiirka wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Foosiye Maxamed Sheekh ayaa soo xirtay shirkii wada tashiga sharciyeedka korontada oo maalmahan ay la yeelanayeen wasaaradaha tamarta dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo shirkadaha korontada dalka kadib dood adag ayaa ugu dambeyn lagu heshiiyay in hindisahan uu ka soo gudbo aragti wadaag iyadoo ay soo dhaweeyeen xubnaha shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dowlad goboleedyada dalka xeerkan sharciga korontada wada tashiga sharciga korontada wuxuu socday in muddo dheer uu socday wasaaradda waday iyo tiimka looyarada baa waday way soo gabagabeeyeen annagana waa nagala tashadeen private sector-kana way kala tashadeen waanu arrinta aad iyo aad baa la soo dhaweeyay waa soo dhirinay waan isla wada garanay hal meel ku wada shubno waxaan maleynayaa inaan ku wada qanacsanahay kulli ra'ayaashan isku soo ururiyay tahay dawladda tahay private inaan isku wada keenay oo ra'yigeena hal meel aan ka wada dhignay waa ku faraxsanahay marka kulli waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo insha Allah taala inuu dhaqan galo la geeyo baarlamaanka kadibna loo hoggaansamo sharciga si loogu dhaqmi lahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Libaax Ibrahim ayaa sheegay in sharcigan la soo galiyay juhdi badan iyadoo laga soo shaqeynayay muddo ka badan hal sano sharcigan waa dugtiin muddo dheer ayuu soo socday runtii wasiiraddu way ku mahadsan tahay waxay tiri sharcigan annaga sameynayno shirkadaheena annaga ayaan ka wada hadlayno banaanka lagama soo sameynay runtii talo fiican ay ahayd maanta waxaan joognaa wax annaga aan kala qaadan karno ama aan wada ognahay wax aan sameynay oo runtii wax annaga naga bilowmay annagana nagu dhamaaday ay noqdeen wasiirka wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Foosiye Maxamed Sheekh ayaa uga mahadcelisay ka qaybgalayaasha sida ay wada shaqeeyeen in dalkan uu yeesho sharci haga tamarta dalka waxayna inta ku dartay in dhawaan ay horgeyn doonaan golaha wasiirada si ay u meel mariyaan kadibna la marsiin doono heerarka u baahan yahay wasaaradda tamarta iyo biyaha farxad aad u weyn oo noo tahay sharcigiian soo gabagabeynay sanad gudaheedana ku dhameynay taasna waa mahad ilaahan ka helnay waxaan rajaynaynaa kullaybo xukuumadda inaan geyn doono kadibna baarlamaanka ilaahan rajaynaynaa inuu noo fuudeeyo insha Allah maanta waa gunaanudnay guulaan ka gaarnay waana ansixinay annakoo raalli isaga Soomaaliyo dhan sharcigaana waa Soomaaliyo dhan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka dhan oo quseeyaa ayaa mid ay baahi fara badan ay u qabaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed si ay u helaan adeegyadii ay uga baahnayeen dawladooda hasaatee wasaaradda ayaa xoogga saaraysa sidii loo dhameystiri lahaa maadaama uu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho